sheekh lacag deposit ayaan dad ka qaadnay lacagtii way fara badan tahay deposit ahaan baan dadkii ugu qaadnay kadibna waan ku shaqaynay lacagtii depositka faa'iiday soo saartay faa'iidada ayaa iska leh depositka ay soo haray waa aafo taagan minhaajkan hawsha kaga soo hadlay hadda inaad soo celisaan ma ahayn laakiin la iskama warqabee gurigii waad kiraysanaysaa bishii kirada waa lagaa qaadi 5 bilood ama 4 bilood oo horumaraysan waa lagaa sii qaadaya inta lagu dayn maayo darbad waxa lagu dhufanaya la yiraahdo deposit la socoda depositka aan laftirkiisu asal in la qaado ma banaano maxaa yeelay ninkan kiraystay guriga kiraystay waa mustaajir waana amiin ijaaraduna waa aqd laazim min at-tarafayn lacagta aad ku heshiiseen kirada guriga waad ka hormarsan kartaa bishu markay dhamaatana waad ka qadan kartaa oo dib aad u dhigi kartaa dhib ma laha taa heshiis weeye lacagtan depositka maxaa loo qaadayaa maxay tahay kira ma aha xaqaad ninka ku lahayd ma aha dhib uu geystay ma jiro xagee saaran tahay waa dulan sida duba asaalata in la qadaan banaanay waxay ku andacoodaan qolyaha qaada guriga lagu ilaalinayaa hadhow hadduu guriga jajabiyo ama kiradu iska bixin waayo bili horumariska wuxuu ku sii deganaanayaa iyo depositka baa lagaga jiidaya inaan ku kala agagnaa rabnaa saa haddii laga dhigo waa ammaano waa caqdu i'timaankana ammaan haddaynu soo maray laguma shaqayn karo depositka iga qaada isagoo xidhxidhan waa inaad akoon ku rido iyo khasnad ku xidho weligan aad ag marin haddaad ag martood ku shaqayso xoolaha ka soo baxaa iska leh ninka guriga laga kireeyay deganaa ee depositka laga qaada iska laantidaas adigu haddaad cunto xaaraan baad cuntay waa booli waa qurub naareed ha laga fogaado haddaad ku shaqayso waxaad tahay hantida waa ku shaqay waxaad gudbay malyankaadii depositka waa ka labadana wuu soo saaray wadaada waa kale waxna iga sii waa gobonnimo laakiin hantidaas laguma shaqayn karo lama taaban karo asal in la qaadana waa masala fiiha nadar haddii lagu shaqeeyana ayada iyo waxay dhashay waxaa iskale ninkii guriga laga kireeyey depositka laga qaaday xaaraanta aad baa loo daaqaa wadaada ummadda u fudud ku lugooyey ayaga qaybo ka mid ahba qaadoo cuna iska ilaaliya wax bannaan ma aha wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخنا waxaan ku soo koobaynaa laba su'aalood u dambeeya su'aashan ugu horeysa waxay noqonaysaa sheekhna dawladdu waxay bixisaa qandaraas marka qofku uu bixinayo laaluush ayuu qaadaa laaluush ayuu bixiyaa marka la siinayo qandaraaska 10% qiyaastii si loo siiyo kadibna qandaraaskii ama contractigii sidii la rabay uma qabanayo ma fulinayo wuu kala dhimayaa waxbuu kala shaxaadayaa maxaa yeelay lacagtii uu heli lahaa qaar buu laaluush ku bixiyey sida awgeed hawshii loo diray sidii la rabay uma qabanayo maxaa dambi ka soo gaari kala qandaraaslaha ama contractorka su-aasha jawaabteedu insha allahu tacaala inaad garanaysaan baan u malaynaya ninka waa khaa'in xukunkiisu wuxuu yahay soo maaha so intaa uma wax kala meesha ku jira nin qandaraas qaatay oo hanti lagu aaminay oo ummad inuu wax u qabto loo diray oo fariisa kala xaday oo wax qaa'imay wey markii horena laaluush buu ku bixiyay inuu qandaraaska ama kontraktiga u helo oo ummad kale oo safanayso faylal wadato asaga la tartamaysa ayuu laaluushka ku baabi'iyay saan u saxano markii hore la xotanayo kontraktiga qandaraasyada waa in nin walba aqoontiisa iyo dadnimadiisa iyo khibradiisa uu meesha geeyo wax laaluushna uusan bixinin laanna laaluushka wuxuu keenayaa dadka asaga la midka la tartamay intii laga leexiyo asaga in loo eexdo shilka lagu raaco oo xuquuqda bini aadamka u sinayd dadka tartamay ee kala dhaxeeyay tartanka iyo baratanka ayuu horta dulmay markii koobaad markii labaadna wax qabadkii dalkii uu dhisayay iyo dhulkii wadana khaa'imay waman ghashana falaysa minna wadaadaha qaarkood ba waxay leeyihiin haddii kontraktigu meesha wax laga dhisay laga hagaajiyo dhul islaan yahayna waa in loo qabto sida u qiimo badan 100% hadduu daaru kufrin yahayna waa la farsamayn karaa wallahu a'lam